maalmo badan oo 27 December oo kala ah yaa soo martay beledkan iyo dadkan iyo dalkanba laakiin maanta sida dadka ay uga react gareynayaan ay u fahmayaan oo ay ugu taagan yihiin uma in soo marin marka waxbaan soo baranay dulqaadkeeni dayusnimo ma ahayn wax kasta oo qof bina aadan oo ka caroodo oo qoray ka qaato oo ka dagaalamo oo dhiig ku daadiyo ayaa ninka odaga ah caawadan magaciisa lagu celcelinayay iyo hor u soo sameeyay 17 December laga soo bilaabo sida hadda xildhibaan fiqi xusayay ee maxaan ku raaa guriga iyo xarunta xisbiga wadajir mudan Cabdiraxmaan Ashku wiilashi ilaalada ka ah si nabad ayuu gurigaas u joogo ilaalinaya loogu tagay ayagoo filimba xabadda lagala dul dhacay haday tahay madaxweynayaashii oo masafri kartiin iyo airport laga soo celiyay haday tahay maalin kale oo diyaaradii hawada ku jirto ma degi kartid la yiri anagoo wada saaran dhamaanteen haday tahay maxaan ku yiraahdaa soo wad oo maalin walba meel ka soo bilow haday tahay waxay ahayday wax dadku ay inta ka caroodaan ay ka dagaalami kareen laakiin inta rajana waa qabeen dadku waxay islahaan bariya maanta ka fiican dulqaadna waa qabeen waxaan ama hadda faraaka dhibka hadda aan ka caroonayna mid ka weyn amu yimaada maxamed cabdullaahi farmaajo wax u haray markaan ma laha inuu asagu istoogtaa u harta bis wax kale u haray oo aniga hadda aan garanayo oo asagu inuu dagaal isku qaado aan ahayn ma jirtaba marka dadkii caawa halkan ka hadlayay odagu meesha soo baneeyo isagay u gargaareen inta aanu asiga istooganin meesha soo baneeyo haday yiraahdeen asagay u gargaareen ay u naseexeen aqli badan iyo waana fiican ay siiyeen marka taasi intii meeshan laga yiri ee dadkii muhiimka ay ka dhaheen oo dham ayaan la qabaa waxaan rabaa kaliya inaan u sheego doorashada maanta taagan la isku haysto